الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم ولا سومالي ميلة جوجتان بالله سبحانه وتعالى دكوا ما يلو عدي اللي بنبك الله كقاضي عدي دن له وفي انتبهنا الله دقوا انت بكت الله بكسيو انت اللي وقت الله ونحرست والدينتنا الله ونحرست أننا الله نوقدم نحرسته dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyey. Shalay waxaan ka hadlay masalada Palestine iyo xornimadeeda wadanka Falastiin iyo madax banaanidiisa. Waxaan sheegay 3 wadan oo Western Europe ka tirsan oo ku dhawaaqay inay dowladnimo ictiraafayaan Falastiin. Dowladahaas oo kala ah Norway, Ireland iyo Spain. أصحاب رجيجة بايلا صحيري أو بالتليفون أما مقرنيسا واتساب مسج أما يصدري فريمة كالدوان أو تربضن يجو خباين إيجا صحان وحن كانوا شيء الصومالي إني اعترافته مركب إليه الصومالي 1988 ودولدي اعترافي بكمل هاي ودمada المسلمين تاو دمبا كمل شيء كنوع هذا وحربا أنا أريدك جوابه وحيابيه لجاه الجري iyo waxyaabihii ictiraafka iyo waa la taageeray iyo waa endorsement baa la siiyay laga sheekeyn jiray waligeed waxay ku koobnayd in UN-ta member laga siiyo oo mar xoogaa loo ogolaaday non member haddana kadib non member observer laga dhigay oo la dalacsiiyey haddana 143 wadan oo codeeyay waxay u codeeyeen in full membership laga siiyo UN-ta. أصل أهم 1988 ودما بدن با انتي او شيغي ياسر عرفات ayaa wuxuu ku dhawaaqay during the first intifada Palestinian leader Yasser Arafat by unilaterally proclaimed so keligiis wuxuu ku dhawaaqay an independent Palestinian state with Jerusalem as its capital. wadan xor ah oo madax banaan oo Palestine la yiraahdo caasimadiisuna ay tahay Jerusalem. saad ogtihiin caasimadii Israa'iil waxaa loo soo raray xilligii Donald Trump Jerusalem. wadamada aad sheegaysaan oo leedahay way ictiraafeena intooda badan safaaraday ka furteen ama muslim aadeen ama ha ahaadeen non muslim kulligood safaaraday ka furteen. macnaheedu maxay tahay ilaa iyo hadeer ma dhicin dagaalkan hadda socda ka hor waxa dhacay horay uma dhicin. Palestine attention kan hadda ay heshay oo 3 wadan ay hormuudka ka yihiin waxa ugu horeeyay oo kaliya oo 2014kii ictiraafay isla markaasna xafiis ka siiyay wadankooda ama safaaradu wax loo dhigi karo ku dhawaaqay Sweden. dalka Sweden waxa la sheegay has large Palestinian community buu leeyahay. It became the first EU member in Western Europe to recognize a Palestine as a state. وودك ugu horeeyay oo ictiraafa Palestine waadna maqashaan markay dacayadeynayaan Israa'iiliyiinta iyo Mareykanku ay caayayaan Sweden waxa ay ku eedeeyaan ma aha dowladnimada Israa'iil ka jirta iyo dimuqraadiga ka jira iyo struggle-ka ka jira iyo dhibaatada ama xiriirka Middle East-igu is more complex bay dhahaan. Netanyahu hadalka hawey arrin ka culus oo ka xeel dheer IKEA furniture wajada IKEA waxa iska leh nimankaas marka furniture-kan xunka oo IKEA oo aan quality badan lahayn oo aad isu geegeyseen baa waxa moodinaya dawladtiin colaada inta leeg waxa keenay waa wadanka kaliya oo aqoonsaday in laga dhigo wadan madax banaan waxa ka sheekeynaysan 1988 iyo wixii ka horeeyay wax macnaa ma lahayn. waxaan idin xasuusinayaa mesela tusaale ahaan Soomaaliya baasaboorka Soomaaliya waxa ku qornaa aniga waagi ugu dambeysay eedeeyada ka hadlaysaan waxa ku qornaa 2 wadan inaan lagu tagi karin baasaboorkaas Israa'iil iyo South Africa. South Africa xilligaas way xoroobaysay oo 1994 bay xorowday. intii ka horeysay waxa ku qornaa inaan la tagi karin apartheid bay ahayd adoonsi baa ka jiray. dawladda Soomaaliyeed waa ka mowqifkeedii ka way ka sheekeynaysan waxa ka dambeeyay madaxweynihii 2 jeer buu tagay. hadda madaxweynaha fadhiya 2 times buu tagay Israa'iil. maalintii dhaweedo xamaasadu ay qaaday ra'iisul wasaarihii
oo si magaranaysa diinina ku jirto kululna uga hadlay arrintaas oo caalamka muslimiinta oo dhan aad loo wadwaday official capacity-gaas leh oo sidiisoo kale u hadlayna aysan hore u dhicin madaxweynuhu wuxuu ballansaday wariye ingiriis ku hadla wuxuuna akhriyey warkii aad maqasheen oo ahaa anagu waa ictiraafsannahay Israa'iil marka 1988 from the river to the sea sheekadii ahayd baa socotay webiga laga bilaabo ilaa badda Israa'iil shughul kuma laha wax iskala Falastiin sheekadu taasay ahayd Israa'iil joogisteeda ay joogto areadaasna waa dulsaar iyo boob iyo xoog ay Mareykanka iyo Ingiriisku dhul kaga qaadeen dad muslimiin oo ay ku haystaan halkaasay ahayd baashu meesha joogtay hadda marka waxaa la rabaa madaxweynuhu isaga wuxuu yiri xabadaha ka daayeen dadka laakiin waa ictiraafsannahay waxa la wadayo kala tatbiic waxa la yiraahdo oo lagu bulugarayn dadka muslimiinta ah oo ah in si caadi ah Sacuudiga iyo baa kamid ah EDA Imaaraadka kamid ah waxa kamid ah Tunisia waxa wadamadaas hadda Jordan waxa kamid ah wadamada tatbiica Bahrain tatbiica aqbalay baa kulligood kamid ah 1988 marka wixii way isbedeshay we're talking about new policy Western Europe ama Western countries for the first time markii ugu horeysay oo aysan noo dhihin inta Falastiin laga hadlay full membership lagu dhawaaqay inay noqdaan sida Israa'iil ay u leedahay xubin meesha u fadhido kala iyaduna ay u lahaato waa markii ugu horeysay oo lagaga dhawaaqay golaha qaramada midoobay ilaa ay Security Council ma ogolaan oo wadan kamid ah diiday waxaana shardi inay unanimous noqoto Mareykanka diiday arrinta ka socota Gaza iyo Falastiin waa dambi uu Mareykanku ka galay bini aadamka iyo ummadda muslimiinta ah iyaga dambiga galay Israa'iil qaxooti la keenay bay ahayd oo inta la tababaray la hubeeyay lacagta adduunka saa loogu shubay hubka adduunka la geenayo hatta atomic bomb bay yaal mawjeeda marka nuclear power bay haysataa cidii marka diidanayd baa wali diidan Security Council oo halka wadana ilaa unanimous la helana laakiin isagina wuu jilcay dadkiisii baa kacay dhalinyaradii baa kacday jaamacadii baa kacay isagu waa dhacaya wuxuu ku dhacaya qadiyada Gaza ku dhacaya oo ku waayay xilka kan kale oo imaanaya ma dhaamo oo waa kasii liitaa laakiin kan waa lagu ciqaabaya waa la tuuraya mawjada waxa ku xigta inaysan saa u sii wadi karin marka xilligaas ay kiya lagu eedeynayo Sweden waxay ahayd Sweden wadankii ugu horeeyay oo arrinta yeela wadamo marka waxa jira European oo iyaguna ku dhawaaqay oo lix ah oo yiri waa ictiraafsanahay sida Bulgaria Cyprus Czech Republic Hungary Poland iyo Romania laakiin full membership iyo dawlad madax banaan wali lama ictiraafin hadda koor haddana waxa weey May 28 baa saddexda wadan ku dhawaaqi doonaan iyo Sweden oo ka horeysay waxa kale oo hadlay oo iyagana arrintaas soo dhaweeyay oo raba inay iyaguna ku dhawaaqaan wadanka la yiraahdo Australia aad bay arrintaas uga dhex socotaa dadkaas inay the possibility of unilaterally endorsing Palestinian statehood baa ka socota it's too flooded aad baa loo wadwada arrinta oo loo faafinaya waxa kale oo jirta oo aan aad ula yaabay kelmadii la oran jiray madaxweynaha Faransiiska wuxuu yiri kelmadii la oran jiray waxa la policy bay samaysteen Western haddii la rabo qadiyada Falastiin in laga hadlo waa inay noqotaa arrin lagala heshiiyey oo lagala wada hadlay oo dood lagala galay oo ay aqbashay Israa'iil nimba dhulkiisa la qaatay xoog lagu dhisanayaa every day la dilaya la dhacaya hadda waxay maraysaa hatta bini aadanimada waxay ku sheegi jireen iyo human right iyo waxa inaysan cidna uga sheekeyn karin Westernku ever again oo maxay tahay cuntadii iyo biyihii iyo korontadii baa laga goynaya madaafiic baa caruur lala dhacaya way xaq bay u leeyihiin inay dhintaan baa leeyahay maxaa yeelay waa filthy soo koraya animals way waxay dhaheen human animals way waxay dhaheen jiirar way that's what they say dolly way ma aha bini aadan caadi oo fuul ah discrimination public markaas Mareykanku waad maqlayseen wuxuu leeyahay ma jirto wax genocide yiraahdo meesha ka dhacay 35,000 oo qof oo 90 ama 80% ay yihiin caruur iyo haween toban ka soo harayna ay yihiin dad shacab ah baa la laayay waxa ay Hamas meeqa ka disheen ma sheegi karaan shan qof baan ka dilay hatta ma oran karaan 9 bilood bay wadaan dhulkaan dhigaynaa bay dhaheen meel ay u dhaqaaqaan bay laayihiin khuraafaad way hal loo baahan yahay marka dhulka xoog la rabaa in lagu qabsado
qadiyadaas marka waxaan rabaa in dadka wax ii soo qorqoraya nad inaanan ogeyn aniga ay dheegi in laga hadlay iyo full membership iyo partial membership iyo non observer non member observer iyo waxa in laga hadlay waxa lama yiraahdo ictiraaf mid hadda socota ictiraaf la yiraahdo madaxweynuhu boolisigii aan lahaan jirnay hadday tahay Soomaaliya isagaa burburiyay laba jeer buu tagay Israa'iil baasaboorka Soomaaliya ku tagay kow oo dhuumasho waliba waxa uu dheer ra'iisul wasaaraha intuu ka daba hadlay buu yiri anagu waa ictiraafsanahay Israa'iil waa wadan madax banaan oo aan ictiraafsanahay goormay dhul yeelatay lagu ictiraafo oo Soomaaliya ay ictiraaftay boolisigaas aan deganayn oo yani gola kaga kaciyo gola ka fuulka ah oo la iska dhahayo iyadan qornayn wixii meesha ku qornaa Soomaaliya u qornaana khilaafsan waxa Soomaaliya laguma taageeri karo Soomaaliya maanta ay chance haysataa Sweden iyo markay ku dhawaaqaan wadamo European oo weyn ay ku dhawaaqaan Norway iyo Spain iyo ay ku dhawaaqaan iyaduna ku dhawaaqdo hatta anaguna waa ictiraafnay wadamada muslimiinta ay sheegaysaan arha ku dhawaaqeen hadda ku dhawaaqeen 143 wadan waxaad arki doontaan Latin America iyo Europe baa kulligood ku dhawaaqi doona wali iyadoo carabti hadlin iyaga u kala dhuumanaya America waxa xaqsan tahay waa diiday waa wadan kaliya noo yiri marka hadda meel fiican bay maraysaa Canada ku dhicin inay noo tiraado adduunkii European-kii oo dhan ku dhicin inay noo dhahaan laakiin Abstain waa kay anagoo ka aamusnay halkaas ay maraysaa xilligan way xilliga loo baahan loo heeliyo oo wax la taro oo la difaaco oo la yiraahdo waa ictiraafsanahay Jerusalemna waa caasimadooda West Bankiga settlementiga laga dhisayna waa illegal Israa'iil dagaalka ay ka dhex wadana waa xaraam waa dambi ka dhan ah bini aadamka sida in lagu dhawaaqay rabtaa dadkeedii bay rabtaa waxa aan raadinayna kuwa weey waxyaabaha ka hadlayana anoo og baan ka hadlayo aqoonteedii iyo garashadeedii iyo akhriskeedii intaba haysta wax ka jira hadda ka hor oo ictiraaf oo jiray ma jiro buulku adin iyo ashunku adin iyo miska hoostiisa waxa waxba lama dhaho wax runa Sweden baa jirtay 2014 bay ahayd haddana waxa soo raacay 3 wadan iyo dhowr wadan oo Carab ah oo Algeria ay kamid tahay oo iyaguna aad u taageeri doona insha Allah taala laakiin waxaan rabnaa taageero dhab ah inay hadda soo baxdo nimanka madaafiicda ka celinaya hubka siinaya baa waxaad leedahay oo tatbiic in la baabi'iyo qadiyadii oo dhan lagu tunto soo moogid safqatul qarni in xataa lagu dhawaaqay in la gado Falastiin oo lagaba gado yahuuda laga iibiyo lacag intay qaataan ay la tagaan lacagta waxa bixin lahaa imaaradii lacagta lagu gadanayo Falastiiniinta inta lacag loo qaybiyo taga meelo kale aad hawjada inta guryahooda la gataa la siiya marka waxaan ka hadlaynaa waa qadiyad waana adag tahay waana la og yahay hal ictiraaf dalkaas hana loo heliyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu u heliyo oo xoreeyo oo aan aragno Falastiin oo xor ah oo aanu Baytul Maqdis u tagno cibaado iyo tukasho. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.